مسؤولينta maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweynaha ayaa maanta saraakiisha howlgalka ku meel gaarka midowga Afrika ADMIS kala wareegay shixnada raashin gargaar ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle oo ka geysay magaalada xarumaha gobolka Beledweyne munaasabada wareejinta deeqdan waxa goobjoog ka ah dhammaan mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada Beledweyne iyo saraakiisha howlgalka ku meel gaarka midowga Afrika ADMIS ee Soomaaliya General Barte Mutiti oo ka mid ah saraakiisha ugu sareysay howlgalka ku meel gaarka midowga Afrika ADMIS ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan raashinka ay soo gaarsiiyeen magaalada Beledweyne isla markaana ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowladda Hirshabelle Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuro waxaana uu sheegay in ADMIS ay ka go'an tahay garab istaaga dadka ay waxyeeleeyeen daadadka fatahaadaha Leeno gudoomiyaha gobolka Hiiraan dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuro oo shixnadan raashinka iyo agabka kale isugu jirtay loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle kala wareegay saraakiisha howlgalka ku meel gaarka midowga Afrika ADMIS ee Soomaaliya ayaa ka mahad celiyay waxaana gudoomiyaha Cabdullaahi ballan qaaday in si hufnaan iyo cadaalad ay ku dhahantaan loo gaarsiin doono gargaarkan dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle isla markaana tilmaamay xilli ay si aad ugu baahnaayeen shacabka gobolka fatahaadu waxyeeleeyeen deeqdan ku soo aaday ADMISna uga mahad celiyay timid walaalaheenna ADMIS qaybahooda kala duwan saraakiisha halkan taagan iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee hay'adaha UN-ka iyo cid kasta oo deeqdan inay halkan timaado sabab u ahayd qaab dawladeed qaab UN iyo qaab AMISOMba waxaan leenahay waad mahadsantihiin waa deeq isugu jirta raashin iyo qalab waa deeqna soo gaartay xilligii aan ugu baahida badnayn ee dadkeena ugu dhibaatada badnaayeen gaar ahaan dadka IDPs-ka qaxootiga markii horena qaxooti ahaa abaaro iyo colaado iyo dhibaatooyinka ay ku hayeen dadkii nabadiidka al-shabaab ka soo qaxay oo fatahaadii eleenadu ay misana dib u sii dhibaataysay waa wax maanta agteena ka ah qaali tirada ay leen fiirimayna tayada iyo qalbiyada keenay ayaan kaga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaynaa dhammaan saraakiisha halkan taagan qaybta safarka noogu timid oo janaanka hogaaminayo qaybta hore noola joogtay ee sector 4 iyo ku-xigeenkiisa iyo saraakiisha kale ciidamada AMISOM waxaan leenahay waad mahadsantihiin waxaadna soo gaarsiiseen dad baad badbaadiseen baahidii dadkaas ay u qabeen raashinkaana waxaan hortiina iyo Ilaahay hortiisa ka ballan qaadaynaa inay siday tahay aan dadka IDPs-ka u gaarsiin doono thank you very much waa mahadsantihiin walaalayaal thank you shixnadan gargaarka raashinka ah ee ciidamada midowga Afrika ADMIS ee Soomaaliya ay ugu talagaleen in lagu caawiyo walaalaha Soomaaliyeed ee waxyeeleysay fatahaadda webiga Shabeelle ayaa wax badan ka tari doonto baahida dadka ay saameysay fatahaadaha webiga Shabeelle ee ka barakacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse warbaahinta qaranka Beledweyne